wafdigii wasiirada ahaa ee ka socday waddanka somaliland ee ku sugnaa waddanka jabuuti oo ay ka mid ahaayeen wasiirka gaashaandhigga somaliland iyo wasiirka balayninka ee waddanka somaliland ayaa waxaa xafiiskiisa ku qaabilay wasiirka maaliyadda ee waddanka jabuuti ilyas muuse dawaale waxaana kulankani geeska ahaa safiirka somaliland u fadhiya waddanka jabuuti ambasador cabdifataax siciid axmed waxaana la iskula soo qaaday sidii loo sii xoojin lahaa xidhiidhka iyo cilaaqaadka dhinaca dhaqaalaha ee u dhexeeya somaliland iyo waddanka jabuuti markii uu kulankaasi soo dhammaaday ayaa waxaa saxaafadda la hadlay ugu horrayntii wasiirka maaliyadda ee waddanka jabuuti ilyas muuse dawaale sidoo kale waxaa isaguna saxaafadda la hadlay wasiirka balayninka iyo qorshaynta ee waddanka somaliland annaka waftigani somaliland kii u horreeyey ma ahayn kii u dambeeyeyna ma noqonayo in labada dal xilligaad eegto somaliland iyo lase jabuuti waxa aan qabno iyo waxaan isku nahay iyo lase xididadu sida iskugu xidhan yihiin waad wada ogtihiin sharaf bay tahay anigu inaan maanta aan la kulmo wasiiro somaliland ka socdo khaasatan wasiirka qorshaynta iyo wasiirka difaaca in jamhuuriyadda somaliland abka waa oo daba looranayay oo doo horeysay inaan la qaada ee la hagaajiyo ay tahay waa tan weeyaan fikradaha aan ka sheekaysanayna maanta waxa weeyaan isdhexgalka dhaqaale waralkiin joognaa xilliga ay noqoto intani xuduudda jabuuti iyo somaliland u dhaxaysa xilliga ay noqoto maxaa noo diiday inaan dariiqyaan helno maxaa noo diiday inaan koraano aan isgaarsiini karno telecommunicationka already marka hore waxaan u mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti waxaa kaloon u mahadnaqayaa wasiirka maantana qaabilay walaalkan ilyas oo ah wasiirka maaliyadda dee waxaan ku raacsanahay waxa uu yidhi waxa weeyaan anaga jabuuti waa dal walaalahaya dhaqan dhaqaale naga dhexeeyo aanu cusbaynkaasi oo waddan cusub oo imiga imanaya manihiin oo isbaranaya waddan dadkiisa iyo xuduudiisa iyo meesha aanu naalo ilaahayna wada dhigay baa aan nahay waxaanu isla taabanay inaanay ka soo hadhi karin dadku aanay ka soo harin karin in xagga horumarka laga shaqeeyo message-ka ama fariimaha aan ka helanana waanu gaarsiinaynaa dalkii iyo madaxweynahayaga muuse biixi cabdi geesta kale wafdigan wasiirada ah ee ka socda dalka jamhuuriyadda somaliland oo uu wehelinayo safiirka somaliland u fadhiya waddanka jabuuti ambasador cabdifataax siciid axmed ayaa waxay kulan la qaateen xogayaha guud ee urur goboleedka igaad waxaana kulankani uu ka dhacay xarunta urur goboleedka igaad ee ku taala waddanka jabuuti sida uu sheegay injineer maxbuub macalin xogayaha guud ee urur goboleedka igaad ee fadhigiisu yahay waddanka jabuuti ayaa wuxuu booqasho ku tegi doonaa waddanka somaliland wafdigan labada wasiir ah ayaan maanta kula kulmaya halkan saldhigga igaad magaalada jabuuti saad ogtihiin anaga shaqadana waxaa weeye in aan isku xirno wixii ku saabsan horumarka maaragtay regionka naga igaad oo dhan marka arrimaha jireen horaan aan ka wada shaqaynaynay oo arrimaha biyaha ay ka mid yihiin arrimo maaragtay xagga tacliinta oo universitygan sheekh veterinary school ay dhahaan iyo midka ku yaalo camuud maaragtay maalgelin aan horaan ku samaynay maadaamu aan u malaynayn inay maaragtay waqti abaareed ay bilaabi doonaan marka dee horumarkaas sidaan wada shaqayn lahayn waan ka tashanay halkan lagu qaabilay maxbuub macalin waxa weeyaan sharaf weyn bay noo tahay igaad waa muhiim bay somaliland u tahay sida uu sheegay hadalkaygu badankiisa wuxuu u badnaa inaan ka wada hadallo xagga horumarka somaliland waddan yar oo hadda soo korayaan nahay mashaariic badan baa socota laakiin baahiyuuna way jiraan marka igaad dhowr mashruuc bay nagala shaqaysaa waxaan halkan u nimidnay markaa inaanu u waranno marxaladda iyo baahiyaha iyo waxyaabaha noo qabsoomay